maamulka sare ee madrasada Ansaaru Sunna ee magaalada Nairobi ayaa deeq isugu jirta raashin iyo daawooyin waxay u ururiyeen dadka Soomaaliyeed ee abaaraha riiqda dheeraad ku habsadeen ee ka soo hayaamay gudaha waddanka Soomaaliya kuna sugan xiriyaha qaxoontiga ee waddanka Kenya. gudoomiyaha guud ee madrasada Ansaaru Sunna Sheekh Cabdirasaaq Jiir ayaa timaxay inuu deeqdan la beegsan doono meelaha ugu taagta daran ee ka jiraan baahida iyo bukaanku. waxaanu intaa raaciyay inay sii wada doonaan deeqaha iyo gargaarka ay ugu tabarucayaan dadka walaalahooda islaamka ah ee ku dhibaataysan gudaha waddanka Soomaaliya iyo xiriyaha qaxoontiga. isagoona sheegay inay soo kordhayaan dadka Soomaaliyeed ku soo qulqulaya xiriyaha qaxoontiga ee ku yaala soohdinta u dhaxaysa wadamada Kenya iyo Soomaaliya iyagoo ka soo cararaya colaado iyo abaaro isbiirsaday oo ka taagan dalka Soomaaliya. waxaanu geynaynaa insha Allah tabaaraka wa taala qaxootiyada cusub oo ka soo barakacay dalkii iyo dhulkii Soomaaliyeed ufurow ka yimi diinsoor ka yimi baayo bokool ka yimi jubooyinka ka yimi meel kasto ay ka soo barakaceen yimi qaxootiyada oo dhibaataysan oo maalin walba la aasayo dhalaankoodii la aasayo. shalay baa ugu dambeysay sidaan warka ku helay 16 ilmood baa qubuurtooda la qodayay. sidaa daraadeed nin walbow dhaqaaq, nin walbow ka dhiidhi, nin walbow dhiib oo nin walbow dhagayso waxa dhacaya. waxaanu isu taagnay walaaladeen Soomaaliyeed oo ka soo barakacay dhulkoodii oo ku dhibaataysan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya oo abaaruhu waxyeeleeyeen oo dariiqa ku soo dhintay oo ku soo baaba'ay in aan la danqanno oo aan garab istaagno oo ciriiriga aan la wadaagno oo gacanta aan u taagno ilaahayna u barino ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhibkaasta inuu ka qaado kala qayb qaadano. waxa meesha yaala dhar weeye maxay ahayd quud weeye quutu daruurigi caano weeye timir weeye weelal weeye koobab kirliyo kabo intaana waxa ka sareeyo kutubo quraana oo ardaydii ninkiiba uu la yimi kitaab quraana. marka aanu raashinka bixinayno oo koobka iyo kirliga bixinayno waxaanu garab gelinaynaa kitaab quraana. maxaa yeelay waxa la garan jiray gaaladu markay qamadi iyo xoogaa yar bixinayaan inay bible ku laraan. annana insha Allah tabaaraka wa taala markaanu raashin bixinayno risaalaanu ku daraynaa, ducaanu ku daraynaa, alla bari baanu ku daraynaa insha Allah tabaaraka wa taala. Soomaali meelay joogtaba waa u ducaynaya Allah baraka iyo Soomaali. sidoo kale waxa iyaguna ka qayb qaatay dad gureynta raashinkan deeqda ay u guurayay xiriyaha qaxoontiga ardayda yaryar ee dulaabta ee wax ka barata madrasada diiniga ah ee Ansaaru Sunna. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعقتان iyo waxaan saaruna walaalin muslimiinta ugu saaruna abaarta aysato waxaan inta ku saaruna waxa awoodi kartiin waxa bixin kartiin oo saacideynayna qaxootiga muslimiinta oo walaalaheen Soomaali joogan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راشين وحو أرورنا إنا مسلمين تانا ولا لهنا إنا ساعدينا وقاعد كل منايان صوماليا جوغان رفيجي كامب على فرو كينيا كتاشا غاريسا كتاشا إنا ساعدينا ربنا waxaanu aruurinay raashinkan ee kitaabyaashan ee waxa dharka walaalayaasheen oo abaarta u dhimatay daadab iyo qaxootash meelahaas ku nool walaalayaal mahadsantihiin. Ansaaru Sunna waxay noqonaysaa madrasadii ugu horeysay ee ka qayb qaadata barnaamijyada khayriga ah ee deeqda loogu ururinayo dadka Soomaaliyeed ee abaaraha iyo colaadu ay ku habsadeen. Ali Ismaaciil Ali, Home Cable TV, Nairobi.